ay ajasiishu dhamaato ajasha oo xilligeeda ilaahay uu garanayo laakiin dhacdooyinka ku gadaaman markasta oo uu gool dhaliyo ciyaaryahanka gobolka Wales ee dalka Britain iyo kooxda Arsenal Aaron Ramsey waxa ay noqdeen kuwo mucjiso ah oo la yaab badan ku dhaliyay inta la socota arrimaha ciyaaraha iyo fanka qaybihiisa kale waxa jirta in ciyaaryahanka Aaron Ramsey uu gool u dhaliyay xulka dalkiisa iyo kooxdiisa Arsenal goolashaas oo ay la socdeen shilal siyaabo kala duwan u dhacay oo galaaftay nolosha mas'uuliyiin caalami ah iyo dad magacoodu caan ka ah bulshada dhexdeeda una badnaa bahda fanka ee heesaha iyo filimaanta kowdii bishii May sanadkii 2011 ciyaaryahanka Aaron Ramsey waxa uu gool ka dhaliyay kooxda Manchester United ciyaar ka mid ahayd tartanka horyaalka Ingiriiska 4 saacadood oo kaliya ka bacdina waxa lagu dhawaaqay geeridii Osama bin Laden labadii bishii Oktoobar ee sanadkii 2011 Arsenal waxa ay khasaartay ciyaar ay la lahayd kooxda jaarkeeda ah ee ay sida weyn u xafiltamaan Tottenham Hotspur natiijo 2 gool iyo 1 ahayd goolka oo Arsenal u dhaliyay ciyaaryahan Aaron Ramsey 27 saacadood ka bacdina waxa lagu dhawaaqay inuu dhintay aasaasihii shirkadda Apple Mr Stephen Jones 19 Oktoobar ee sanadka 2011 Aaron Ramsey waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 1 gool oo ay kaga badiyeen kooxda Marseille ee dalka Faransiiska ciyaar ka tirsaneyd horyaalka kooxaha qaaradda Yurub maalintii ku xigtayna kooxihii kacdoonka Liibiya waxay ku dhawaaqeen in la dilay madaxweynihii hore Muammar al-Gaddafi 11 February sanadkii 2012 Aaron Ramsey waxa uu gool ka dhaliyay kooxda Sunderland 8 saacadood oo kaliya ka bacdina waxa la sheegay inay dhimatay gabadhii heesaaga caalamiga ahayd ee Whitney Houston oo u dhalatay dalka Mareykanka 22 bishii Maarch 2013 Aaron Ramsey oo u ciyaarayay xulka kubadda cagta ee dalkiisu waxa uu gool ka dhaliyay xulka dalka Scotland wax yar ka bacdina waxa lagu dhawaaqay inuu dhintay xiddiga kubadda basketka ee dalka Mareykanka Ray Williams bishii August 2013 ciyaaryahanku waxa uu gool ka dhaliyay kooxda Manchester City oo ay ciyaar saaxiibtinimo wada lahaayeen isla xilligaana waxa lagu dhawaaqay inay dhimatay gabadhii caanka ka ahayd ciyaaraha qoobka ciyaarka ee boobka loo yaqaan Eddie Gorman November 2013 Aaron Ramsey waxa uu 2 gool ka dhaliyay kooxdiisii hore ee Cardiff City oo ay ciyaar wada lahaayeen kooxda Arsenal waqti yar ka bacdina waxa la shaaciyay inuu dhintay jilaagii filimaanta ee dalkaasi Mareykanka Paul Walker oo shil gaari ku haligmay 11 bishii August 2014 ciyaaryahanku waxa uu gool ka dhaliyay kooxda Manchester City xilligaana waxa lagu dhawaaqay inuu dhintay jilaagii filimaanta dalka Mareykanka ee Robin Williams oo isagu isdilay 9 January 2016 Aaron Ramsey waxa uu gool ka dhaliyay kooxda Sunderland goolkaasina waxa uu la xilli ahaa dhimashadii heesaagii iyo jilaagii u dhashay dalka Britain David Bowie January 2016 Aaron Ramsey waxa uu gool ka dhaliyay kooxda Liverpool ciyaar ka mid ah horyaalka dalka Ingiriiska xilligaasina waxa uu ahaa markii uu dhintay jilaagii dhanka masraxiyada iyo filimaanta ee Alan Rickman si kastaba ha ahaatee waxa xusid mudan inay jiraan goolal uu ciyaaryahanku ku dhaliyay oo aanay la socon waxyaabaha